taageerayaasha jamaahiirta madaxweynihii sagaalaad ee nabad iyo nolol Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa saameyn muuqata ku yeeshay doorashada iminka ka socota gudaha dalka Kenya kadib markii afka ciida loo daray Raila Odinga oo ah musharaxii uu taageerayay hogaamiyaha faaruujinaya filada Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Tani waa cawaaqib xumo weyn oo nagu dhacday annaga iyo taageerayaasheena in galaangal siyaasadeed aan horay loo arag uu sameeyo siyaasi Soomaaliyeed oo aan u dhalan gudaha dalkeena iskaba dhaaf in uu xil hayay ayuu yiri Raila Odinga oo uu warramay wakaalada wararka ugu afka dheer gudaha dalka Kenya ee Daily Nation. Inkastoo uusan Raila carabaabin cidda uu kala jeeda ama siyaasigaas Soomaaliyeed weedhaha uu ku yiri Raila Odinga balse midda aan la qarin karin ayaa ah ee ka jira gudaha dalka Kenya saameynta jamaahiirta ay ku yeesheen doorashada dalkaasi oo qeybo kala duwan leh sida doorashada golaha deegaanka, barasabyada, senatarada iyo xildhibaanada gudaha dalkaasi Kenya tan ugu sareysana ay tahay madaxtooyada dalkaasi Kenya. Dadka qaarkood ayaa qaba in Ruto iyo Raila midkoodna uusan u rooneen Soomaaliya iyo horumarka ka soconaya balse taa beddelkeeda ay qaadeen taageerayaasha madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay cashir u tahay Uhuru iyo xulafadiisa oo argagax xoogan ka qaba halka ay ku dhamaan doonto natiijada doorashada madaxtooyada dalkaasi Kenya. Faarax Macalin waa mid ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee dalkaasi Kenya waxa uu guul taariikhi ah ka gaaray doorashada dalkaasi iyadoo guushaasi furo ay u noqotay darbaaxadii xooganeed ee ku dhacday Gafur Culusta Kenya oo uu ugu horeeyo madaxweynaha xilka baneynaya Uhuru Muigai Kenyatta. waana mid keentay in shucuubta qaar ee dalka Kenya taageerayaasha Raila Odinga iyo Uhuru Kenyatta ayaa ama kaag iyo argagax ka qaaday dhabbihii ay qaadeen jamaahiirta nabad iyo nolol ee isugu jira Kenyaanka iyo dadka Soomaaliyeed oo intooda badan door lixaad leh ka qaatay saameynta ay ku leeyihiin doorashada dalkaasi Kenya. Laakiin guusha Faarax Macalin iyo xilka loo doortay kama aysan farxin madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble maadaama markiisii hore uu ahaa Faarax Macalin mid aad u dhaliili jiray mucaaradkii uu ka mid ahaa Xasan Sheekh iyo sidoo kale habdhaqankii uu dalka ku hogaaminayay Maxamed Xuseen Rooble waana tan keentay in kooxdaasi ay dhibto guusha Faarax Macalin. yeelkadeeda doorashada madaxweynaha dalka Kenya ayaa saacadda ka dambaysa isbedel ku imaanaya iyadoo ay u muuqato in madaxweynaha bedeli doono Uhuru Kenyatta uu noqon doono madaxweyne ku-xigeenkiisii hore ee dalka Kenya William Ruto isla markaana uu noqon doono madaxweynaha lixaad ee dalka Kenya. waana cashirkii ugu xooganaa iyo dhabarjabkii ku dhacay Uhuru Kenyatta laga soo bilaabo markii uu xilka madaxweynaha qabtay gudaha Soomaaliya madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana Uhuru kolba derbiga meel cidla madaxa kaga dhufsanayay ilaa imikadan doorashada ay ka soconayso gudaha dalka Kenya saameynta taageerayaasha madaxweyne Farmaajo ay ka muujinayaan gudaha dalkaasi Kenya ay noqotay mid ay la amakaagaan siyaasiyiinta dalkaasi. waana mid qasabtay in bogoga hore website-yada iyo wakaaladaha gudaha dalkaasi Kenya lagu daabaco saameynta jamaahiirta nabad iyo nolol. isku soo wada duub dhawaan waxaa la filayaa in guddiga